meel soo jira waxa jira maraan xitaa aan xaafad ka shaqeynay Hargeysa waaw haye Hargeysa weeyaan meeshan laxada ku duushanaa waa New Hargeysa wadaaga laxada duubi jiray waa afarta habeenimo kii cali baa yidhi dadkii intuu aamusiyay qof baa hibaaq Mareykan uga yimi yani jidka u baneeya hooyada marka la igu soo diray loo soo sheegay la dhinaantaadi waxaan ka daawanay aniga ma haban jiro ma baa habaytay ma bihiba adaa tafray yani aan difir jiray markii dambe arintii ay soo bandatayna daawadayaal halka nagala socotay waa Guura Media barnaamijkeena kulanka bulshada ayaan galabta inta ku soo afmeerayna waa aniga sagal gooreeyay leh soo horta yiraahdaan dadku ay dumarku yiraahdaan raggu dumarka waxay jecel yihiin tabasarida boqolka carruur ay sugi dhaxdiis kulan wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka kulanka bulshada oo ka daawataan Guura Media iyo waliba sidoo kale sagal Guura Page maanta barnaamijka waxa inoogu martiya oo inala joogta gabadh Marwe ah ma sha Allah hibaaq Yuusuf Cabdi oo ku magac dheer hibaaq Gobaad anigu waxaan u aqaanaa Iron Lady hibaaq soo dhaw walaal wandhow sagalay aad baad mahadsantahay Ilaahay ku sharfo waxaas amaana inta inka badan baan ku leeyahay waana ku faraxsanaynaa barnaamijkaaga qayb ka noqdo aad baad mahadsantahay sharaf aad baad hibaaq u mahadsantahay maanta in lagu raahdo gabadhii waxa tahay birta ahayd adiga ayaa kasbaday ma aha waxaan ma aragtaan kugu amaanaya waxa tahay weeyaan daawadayaal siin wada ognahay hibaaq waa fanaanad waa jilaa sidoo kale waa ganacsato dhawaan waxay noqotay hooyo mar labaad ku soo dhaw Guura Media hibaaq walaal wandhow aad baad mahadsantahay hadii aynu barnaamijkeena guda galno waxaan doonayaa inagoo dhowr qabeed baan u kala qaadi doonaa laakiin marka ugu horeysa inaynu ka horeyno xaggaas iyo ganacsiga hibaaq waa gabadh ganacsato ah koofeer bay leedahay dukaan bay leedahay bal haye waxaan ka sheegaa dukaanka oo kale magaalada Hargeysa waxa kaaga furan dukaan aad u aasaastay gabdhaha magaalada Hargeysa iyo meelo kale oo Soomaalidu degto lagaga yimaado gobolada Somaliland bal sidaad ku aasaastay hibaaq iyo horta hadaan iraahdo shaqo halkan ka bilaabay mise hadaan dukaanka ka sheekeeyo labadaaba horta adaa doorle kan ku sheegayo dukaanka waxaan ugu tala galay hablaha waxaan ku iibiyaa alaabaha kala duwan ee hablaha dumarka mana aha shaqadeedii ugu horeysan qabto koofeer baa horta iga horeeyay shaqooyin badan oo ka sii horeeyayna waa soo qabtay oo nooc kasta leh mid hoose oo loowa mid sare marka waa kaas waxaad ka dhawaajisay inaad shaqooyin hore soo qabatay oo waliba qaar loo ku jiray walaal lagu marka shaqo aniga way shaqo haye shaqo aniga way shaqo hadii lacag lagu helayo muruqaaga maalis way shaqo maxay hayn marka anigu waxaan shaqooyinkan soo qabtay oo dhan waxa soo qabtay horta meeradan ka soo shaqeeyay koofeer baan sidoo kale koofeer kan imka sidoo kale ka soo shaqeeyay burco waxa ka soo shaqeeyay waxyaabo badan marka shaqooyin kalaasida ka shaqeynaysa marada koofeer iyo meel kaliya wallahi kala horta aniga ku leeyahay shaqo way shaqo sagalay ma doonayo shaqadan sheegayo dad baa imka ka shaqeeya marka mar rabada ka inaan u dhaliilo waa shaqo loo wax ka sharaf badan ma garanayo qof muruqiisa maalaya anigu iskuulka dhiganayaan meel soo masaxayay wax dhiganayaan maxay raada hodeelaan laxooxda u dubi jiray yani aniga kule meelaan soo masaxi jiray hodeelaan mar laxooxda u dubi jiray wax kasta oo lacag ka sameyn karo waan soo sameynayay marka imka shaqada dad ka shaqeeya jira waan ku hambalyeynaya waxaan ogahay qofka maanta shaqada uu soo dulqaatay inuu shaqo kasto weyn uu qaban karo uu meesha meel ka sareysa gaari karo marka hibaaq waxa ka dhigantay fariidnimadaada waad la yarayd ba waqtigaad yarayd baad waxaad sameyn jirtay inaad ma oran karno ma aragtay waa runtaada dhaliil maaha qof kasta oo shaqaysanaya ma aragtay waa qof fariida weeyaan muruqiisa Soomaaliya laakiin inaan subaxii ka lahdo oo meel soo masaxda waxa la oran karaa waa hablaha ugu fiican bay ku jirtaa marka subaxii baad kala hijirto meel baad soo masaxi jirtay meel soo masaxi jirtay waxa jira maraan xitaa aan xaafad ka shaqeynay Hargeysa waaw haye Hargeysa weeyaan meeshan laxada ku duwi jirnaa waa New Hargeysa wadaaga laxada duwi jiray waa afarta habeenimo lacag baan ku qaadanay marka lacagta iga badan inaan shaqaysta iga go'nayd ayadoo yani aan dhalinyaro ahayo markaan aad u yaraayo mar aan fasax ku jiray oo kale aan wax dhiganayay oo aan arday wax la dhigan jiray oo yani aan ogahay qaar iga baahi badnaa shaqada inaan qabteen haddana waxaan jeclaa markasta inaan hooyada iyo kaabo family-gayga kaabo oo aan barbarkayga shaqada ka galo marka waa maalintii ugu horeysay aan ka hadlo waan ogahay wax laga faanay inaan yahay marka aad baan salaamay qof kasta imka shaqooyinka ka shaqeeya waxaan leeyahay rajo fiican oo taa ka sii wanaagsan baa ku soo socotay shaqadaada wado
inantii shaqada ka soo bilowday inay dhulka masaxdo ee laxooxda dabi jirtay oo hibaaq gobaad maanta hor fadhida ah ayaa waxay samaysay wallahi horta kama aanan hadlin xataa barnaamijka dhigmay jirin laakiin waxaan ogahay inay wax wanaagsan tahay waan dhiiri gelinaya dad badan oo maanta halkaa maraya ha yani halkad ka soo bilowday halkad maanta taaganta xoog guriga hooyadina waan jooga barisan ka cunay mararka qaar ha ma wax laga faano maahay waa wax lagu faano oo dad wax laga yaabo in hablo badan oo maanta shaqooyinka ka shaqeeya hibaaq ay yiraahdaan hibaaqba hadday halkaas soo martay oo maanta halkaa taagan tahay annaguna waynan dadaalno marka hablo badan baad maad aragtay u tahay waxaa jirta sagalay ma taqaanaa waxaan sitaa iminka taleefanka iga soo wacaysa waa kameeradeeda marka ramadaankii oo kale aan geliyon kaygii baraafadkaa xidhay markaan shaqaynayay sidiina ma aanan u xidhin marka waxaa jirta mar walba markaan beenta iska ilaaliyo markaan ugu yarahay waxay la soo hadla laba hablood maalintaan ugu yarahay oo igu yiraahdaa duruufaan haysata shaqaan doonina waaba marmarka qaar waxaasan doonaya inaad iga bixisid lacag noocaasaan u baahanahay waxaan ogahay haddaan maanta yani uu qofku shaqooyinkan kuu sheegaya raadiyo inaanu qofna wadankeena ka waayin laakiin ay jirto isla weyni ay iskala weyihiin shaqooyinkaas marka intaad maanta yani aniga eeg intaad anigu horta qof waan caawin karaa wax waa la weydiin karaa inaan walaashayo duruufaysan waxaan ku dhaamo waan tari karaa laakiin sababtan u dhalinaya waxay tahay anoo xoogo lixdeedii laxaad qaba inaan idhaahdo maanta waxa ka mudan igu tiraahdo shaqaysii ayaa ka mudan inay igu tahay lacag ii soo dir marka inan walba waxaan leeyahay wadanka shaqooyinka haddaan ku idhahdo maanta meherada walaal masaxaad iga baahna kaala iga shaqameeyo ma qaadanayso inay laakiin inaad xoogaa yar bay jeceshahay marka dadku kale way la arkeen iminkoo kale Soomaalidu xoog bay waxay u barteen arrimaha noocaasa inay yiraahdaan qof duruuf ay haystay caawi waxay igala hadlaysaa mobile weyn anu marka mobile weyn ma baan sidanba marka waqtiga ay shaqeeyay waqtiga gabadha halgamaysana ha ma baan sidanba halgan nololeed ku hamiyay marka lacagta ay soo gashay ugu horeysa inaan mobile siisto maan ku hamiyay inaan wax ka fiican xaafadeeda ugu qabtaa maan ku qabsadan doonay mobile weyn bay igala hadlaysaa khad bay ayay sidataa lacag bay ku soo shubatay mana rabto inay fartaagto marka waxay arintaad u socotaa hablo shaqaystaan iska daayaan waxyaabo waqtiyadii aad shaqooyinka qabanaysa yani waxa leedahay anigu halgan baan ku jiro maaba ii qorshaysnaa ma niyadeeda ma ku jireen niyadeeda kuma jireen inaan mobile weyn qaato inaan qof shaxaado inaan wade wax korarsado aan mar walba shaqadii ka sii adag tahay sii qabto meeshan uga gudbi karana inaan uga gudbo ayay iga ahayd waxaan doonayaa hibaaq inaan ku weydiiyo shaqadeed ka soo shaqaysay ee aad soo qabatay waan ka soo sheekaynay markii dambe kor baad u dalacday koofeer baad furatay haye markaasi waa markaan horta aan university ka shaqaynayay xoogaad caan soo noqotay aan koofeer ka furtay ilaa iyo markaasna waxaan ku fikiray inaan wax yani aan halkaa ka sii wado markaan universal aan ka soo baxo aan meel fadhiisanin oo aan de waqtigayga meel kale ku bixiyo wixii aan helan aan urursado oo wax weyn oo muuqda ku qabsado markaas aad koofeer ka furtay haddana waad sii yara socoto dukaan baad furtay habluhu ay leeyihiin waan gatay waaw bal dukaankii asaaskiisii dhaqaalihii markaa dabcan waad korto dhaqaalahaagu isbedelay haye dhaqaalahaygu isbedelay horta oo dee waa aniga meherada furtay laakiin markastoo maad aragtay shaqadaada lacagtaadu badatana baahidaada badanaysa markastoo ay shaqadaadu korodho oo lacagtaadu badato lacag doonkaaguna wuu sii badanayaa waxa laga yaabaa markaa inaan $200 ku shaqaynayay aan qaadanayay aan university ka shaqaynayay ama adu $200 ay ugu filayeen isku filaysinayay maantana inay shan jibaarkeedii soo gasho oo aan haddana wali sii wado wax ka weyn sii raadinay marka xalada markastoo karo ka yimaado baahidina way sii waxaan u maleynayaa hibaaq inay tahay gabadh reer Burca reer Burca salaam goorbaad magaaladii Burca ka timid Burca waxaan ka yimi markaan iskuulka dhameeyay 2016 waan gartay secretary ka baxay been Hargeysa soo shaqo tagay marka halka shaqo tagtay ka timid laakiin waxay la tahay baaqay adigu maad soo raacin gawaadhidii $12 lagu soo raaci jiray qoladii magaalada $5 $3 ka soo gashay kamid waxaan maleeyaa $7 ku soo raacay waan gartay inaan $7 ku soo raacay aad magaalada ku soo gashay haye hibaaq waxa weeyaan marka inta ka nimaadno waa fanaanad waa jilaa adigu horta jilliinka iyo fanka inaad haystay keebad jeceshahay jilliinka inaad wax jeceshaad dadku maxay ku dhahdaan ma jilliinkaad ku fiicantahay jilliinkaad ku fiicantahay igu dhaadeen waan gartay waliba hibaaqay markaad wax jilayso waxa lagu moodaa dadka qaar baa
marka la daawanayo dadka jilayaasha dadka qaar waxaad moodaa xoogaa inay ku yara dardaraan mise inay iska keenkeenayaan qofnaha yacni aanay wixii u dhalan laakiin moodaysa in iska yara keenayaan laakiin natural adiga waxaad moodaa reality waxaaga adiga iyo tiim kaloo badan oo kula matulay ka mid yihiin Yuusuf Cagaag iyo waxaaga waa really bal ka waran walaalo markaad matalayso aad wax jilayso adiga macluus bay kula tahay mise wax yiisii qofto ما واحد سيدا عين شاكسان إنهم بينات ayay ku tahay haye وكاس markii aad bilowday magaaladii caasimadda ahayd ee Barcad ka bilowday mise halkan برعانا وحوان يرتشل تشري تشرني يعني ده وح مالك مقدس أو مقدم هنا لكن أنت يجوب بدنايد هل كانوا يعني وحي هذا الجيس لكن برعون قصاب بلعبة laakiin awoodda wax baad ku saartay harkiisad ku saartay فرصة أنا وحيسية أقسمها يونيفرسيتي في أدبن وجمهد علمية محمد عابدي وين كسلامين أدبن سلامين أدبن هاتينك هسه دلنا يرى بدن بصوا صاري هباقي مركل لجها اللايو هباق أخلاق هانت مركل لجها اللايو هباق مركل دتك دعوانا أيان أنت بدن دتك في العلم تكسر نقطة مركل ميلها لا يسوي ما دو دلنا يرد شوجان وحلا رده هباق وقبل أخلاق بدن الحب بيكو أمانا وحن فلا يد أخلاق بس يونا جاكربي هو يد كلاتين ولا الوضع ما هتصنت هاي أذيك بالشدة صاي جرت هيبا وأنا مهد علينا يا دميل كنا كلامي من ورن تقول هويدي هدان هويدي دي أخلاق دي صبرين من وين قرتي هباقي قفكم مركو فنك بلابايو وليبا قبرد مركي فنك بلابيس قروبي كتمين كل آبا iyo hooyo hadii labada waalid nool yihiin asaaska family-guna waxa la oran karaa waa aabi hooyo waalidka sidee bay ku ahaa fanku markaad bilaabaysay aabahay hooyada hortaalka manaadi aad uga salaamaya way jecelahay baan leeyay aniga hooyada waa sheekad dhowr jeer horena waan sheegay sheekad maxajabadu xijaaban weeyaan waana ku faraxsanahay inay hooyada noqoto marka hooyaday waa qof noloshiisa kala halgamaysay dad moobil weyn iyo waxa ku horta ku mashquula ma hooyada yaa baxay laakiin waxa jira dad yaani u soo gudbinayo halkeedii fadhido warka ugu keenaya hooyadeen aniga waxay ugu barbaarisay mar walba inaan yaani runta u sheego wax walba runta uga sheego oo wax walba ila soo gudboonaada aan iyada dhigta u saaro hooyadeen marka la igu soo diray loo soo sheegay la dhinaantaadi waxaan ka daawanay aniga ma haba ma jiro ma baa habay tiri ma bihiba adaa tafray yani aan difiri jiray markii dambe arrintii ay soo badatayna dee waxaan idhaahdaa waan joojiyey haye imikadan darkeeda hooyaa igu sii darinayo waa kaas waxaad leedahay hoosta loo dhigo igu tiri marka hooyaday maaha dadka maad aragtay waa qof cibaadadeeda iyo shaqadeeda ku mashquulsanoo caruurteeda waxa maalataa oo dee iyaduna nolosha dhinaceeda haysataa marka dadka qof inta moobilada maba kala taqaanba hooyada waxa meelaha ka soo baxdaa ما شاء الله أب لكن هو سبوا أبهينا وخيار أبهي صاحبنا وين قرتي إحنا ملينا يا وحن مقلي أرنك هباق وصحفيات بارك الله جورن صحافة الوصابرتي هي وكقل تبي والمش هذا إيه ينكاس لكن هم شقين وين قرتي وكاس مركا أنا تكون شقيسم حاسك كارتاجي والله ده ولا لو أرتاينين قفكم ما درتي مركان لجرنينين warjaanisku iska adeeg yahay marka waqtigaan baranayeen saxaafadu wax xoog baxay ahayd loo jecel yahay bay ahayd wax kastana markii ma aragtay bulshadu waxay jeceshahay ay tahay tartan baa loogu jira sida fursad looga helaa way adag tahay marka waan jeclay inaan ku shaqeeyo laakiin jaanis maanan ka helin xaggan kale jaanis ka helay marka xaggan jaanis ka helan iska raacay hibaaq marka la daawanayo laga arko meelaha social media ama TV-yada laga daawanayaba iyo marka live loo arko dadku waxay radaan hibaaq waxay ku jirtaa dadka change-ka ee aan marka la daawanayo aan ahayn marka la hor yimaado aan qofkii la daawanayo ahayn yani waxaan uga jeedaa hibaaq marka meelaha shaashada laga arko waxa loo yaqaan gabadh weyn oo kaliya ma laakiin marka ay dadka sideedan kale ay isku hor fadhiyaan hibaaq intii markii hore la daawanayo way ka yarto inay yaro dhalinyaro way markaan qof weyn bay waagtaa baaringa maxaad ka leedahay wallahi sagalay kaliya maaha arrinkan uu ila soo bilaabmay ilaa iyo markaan soo galay meediyaha wax kale iska day taxiga soo qaaday igu raada hibaaqe marka meelaha laga daawanayo qof weyn baad u eegtahay
markaa kolley haddaan weynahay hadda yar aniga kor fadhiya waxaad leedahay waa sida midda kale waxay igu barteenna waxa weeyaan dee waxyaabahan matelay dadku igu barteenna waxaan qaataa boos qof weyn mar kasta markaa ma garanayo meesha ka timid arrinkaas weliba haddii aynu kusii soconno hibaaqee boyska qofka weynaad matalayso yacni hooyanimadeed uga jeeda iyo guriga waxaad u matashaa sidii loogu talagalay oo yacni gabadh xoog u marwe ah ayaad markaad matalaysa riwaayadaha aad u matashaa weli ma jirtaa qof ama halkan ba ahaato ama meelka inaga fog ba ahaatee kula soo xidhiidhay oo ku yidhi mar waa tahaye waxaan doonayaa inaad maad aragtay hawlaha ay la qabto reer ahaan kaala hadlay arrimaha mustaqbalka yacni arrin mustaqbal kaala hadlo dee yidhi yacni hibaaq qofkay ay waxaanay matalaysa u eeg tahay oo sida kaaga soo haye majority dadku waan arkaa waad aragtay haye habeenada ka mid ah waxaan xasuustaa annagoo meel ku caweynayno oo adigu dad fara badana ayaa dadkii meesha fadhiyay mid ka midaba wuxuu wacay dhallinyaradii meesha joogtay mid ka mid uu soo wacay deetana wuxuu yidhi gabadha hibaaq gobaad baan daawanayay iminka haddaad taltihiin gabadhaa lay dooro waxa ay matalayso waxaan aaminsanahay inay iyadu tahayba ya marka waxaan u malaynaya dadkaasi ku soo gaadhay hibaaqay wallahi wala la kulmi jiray walaalo way idinku igu oran jireen markaa wayna mahadsan yihiin ammaan baan u arkaa laakiin waxaad leedahay imika mar waanayaan laygu soo degay hibaaqay waad guursatay inan Soomaaliyeed malaha aroos loo dhigo aroosyadii ugu quruxda badnaaba ayaa maad aragtay lagu dhigay inama walaalahayo oo garabka ka joogay oo dahabka ku guddoonsiiyeen qaar inamadii kale walaalaha kamid ah heesay ku qaadeen arooskaaga iyo balka war arrimahaas aad u arkaysay isagale waa mahadsan tahay walaalahay halka manaad uga salaamaya Jibaari Cali Saalax Sanaad sidoo kale waxaan markaan imanka arko inaan yani aroos dhiganaysaa hawshay marayso mar walba niyadan uga duceeya sababtoo anigu markii waxaasoo hawla la qabanayay haddii hoo la soo kareynayay haddii kaadha la samaynayay haddii meel la sharaxayay haddii fanaaniin hees laga duubayay waxaasoo dhan gurigan ka fadhiyey maba ogeynba yacni gurigaas ka fadhiyey waxaan saada qabo waxa laygula waan qabtay marka walaalahay aad baan ugu mahad celinayaa cali iyo cabdijibaar iyo saalaxna waxaan ogaa isagoo Nairobi jooga waa taas kuu soo wadaa markii arooska ahayd markaad arooska ahayd aad fadhiday hal mar ayuu waxa soo galay Saalax Sanaago ubax kuu sida oo heestiina kadinka kala soo galay dadku waxay ku daawanayeen hibaaqay adigoo ilmeynayo ilma ka daadanayso bal arrinta dadka uga sheekay isagale waa mahadsan tahay Saalax wuu xanuunsanayay meherkaygina wuu xanuunsanayay oo Nairobi uu joogay sabab marka dambe aaday ka yimi marka meherkaygu waan ogaa inuu imanayo laakiin arooska waxaan ogaa isagoo xanuunsanayo Nairobi jooga marka habeenkii arooska habeenkii horreeyay message qoran ku ayaa message qoran isagoo dawooyin loo soo qoran ogaayo aan la hadlan kul walaal dawooyinkii ma qaadato wax miska ka bedeleen marka ma iiso jawaabin iimu soo jawaabin message-kayga intuu eegay iimu soo jawaabin waxaan la tar ilaa maalintii marba Cali baan weydiinayaan lahaa maxaa helay iimu iiso jawaabin ma xanuunsanaya marka aanu niyadaba kuma haynin mala wad yara carootay xitaa ma yani inuu ka sii darin ban ayay ilaahay marka habeenkii Cali baa yidhi dadkii intuu aamusiyay qof baa hibaaq Mareykan uga yimi yani jidka u baneeya ha soo maray marka anagu niyadiidan baadhay waxaan la qofkan Mareykanka iga yimi waayo inan baa jirta walaal Sada Cabdalla la yiraahdo way iga weyn oo Mareykanka imanaysiiyadu way timi joogtay waxaan idhi talo qofka Mareykanka iga imanay waayo Saalax baan arkay marka uu qaadan waayay saasa marka ilmo qaadatay wixii heestu ku qaadina hees waliba aad u qurux badan bay aad habla badan oo ka dambeeyo sidoo imka loo saaray aad baan ugu mahad celinayaa dhamaan hibaaqay mararka qaar markay xaaladdu iska yar taagantay joogka aad iskaga jirto waa kuma ama waa tuma fanaanka heesihiisa isku maawelisaa xaalad marka dhageeya akay doonto baa والله ولا ما كورن كره هستان أيان هاولو دقيسته أنا قدان ما أعرف وحجرن ويايو تصبيح ذا قصة وين كفاية وفي عطا هاي
heestan la dhageystaana way jiraan oo yacni aad soconaysid markaa xaaladaad ku sugan tahay miyay dee ka hadlayaan markaa heestan imka kuu magacaabo laakiin ma garanayo laakiin xaggaa saliga nebiga xaggaasan ku badan ku faa'iiday maadaama dee hooyana sheekatood guri xaggaasan miyay ku faa'iiday aniguna hooyaday way igu soo tacabto qaar badan baa odhanaya waa tacab khasaarisay laakiin waxaan leeyahay maan tacab khasaarin hooyaday igu soo tacabto qur-aanka anoo 13 jiraan dhameeyey waaba su-aashaan u soo socday qur-aanka waa dhamaysan haye maasha allah marka imika ma xifdisantahay qur-aanka haa waan akhriyaa wallahi maad akhridaa masood xifdisantahay waan xifdisan ma wada xifdisani haa laakiin waan ku dadaalaa mar kasta inaan xifdiyo dee imika kuma odhan karo soddonka dushan ka haya laakiin waad qur-aanka waad soddonkaba waad dhamaysaa wahagaag kelmadda jacayl maxaad ku qiimeyn lahay wax wanaagsan haye wax wanaagsan oo ummadda soo dhaweeya haddii bulshada u yara fasasho hibaaqay bal siduu eegaan lahaa jacaylka laftigiisu wallahi waxa adduunka ku qurux badan haye ayuu noqon lahaa haddii aynu aragno haye hibaaqay haweenka lala guursado ama ragga haweenka la guursada see baad u aragtaa wallaahi walaalo dee ilaahay baa horta baneeyey sidaan u arkaana de waa qof walba ikhtiyaarku leeyahay waxaan u arkaa dee ninkaa guursaday gabadhii ku geli kartaana ahlan tii aan ku geli karana oo sahlan banaanka si sharaf leh uga baxdo hibaaqtalo maxay sameyn lahayd hadday ku timaado hadday igu timaado dee waqtigaa xaaladan ku soo wartaa hinaasiyad baan hoo ismiligood ku gelaysaa laakiin waqti xaadirkaasaan isqiimeynayaayo haddii aan gabadh halkaa ka bixi kartahayna waan ka baxaya haddaan gabadh dee yacni sagsaa ku jiro meesha ka yaalaan hayna waan ku fadhiyaya laakiin iminka waqti xaadirka haddaan isqiyaaso ismiligood ku gelaysaa marka waxaad leedahay anigu hinaasiyad baan hayayaan hinaasiyad baan hay laakiin dumarka waxaan leeyahay waxba dee yacni dumarka Soomaalidu maaragtay xoog bay u hawla badan yihiin waliba marka gabadha labaadii waxaas ay timaado nin la gubay iyo nin la eryinayo dee noloshu khasab maaha qofkan bini'aadanka haddii maaragtay uu yacni uu meel kale uu arkooday dee kule adigu kuma anigu imika anoo nin doonaya nin kale ma raadin karo haye hadday iyadu is leedahay meelaad adigu wax ka dhintay baa jiro ad yacni ad qofka ku kasban kari weydina buuxiso ay dhalisha xaggeeda ka timi haddii kaloo iyadoo dhammaystiran inkastoo horta yidhaahdaan dadku ay dumarku yidhaahdaan raggu dumarka waxay jecel yihiin tabasarida boqolka carruur ay isugu sii dhexdaysa guriga isdhex dhigata waxba yaynaan isdhex dhiginayn innaga yaroo qurux badan tahay guryaheena iska hagaajisayna haddina lagu nacnaya haddina lagu jeclaanaya waan gartay marka waxaa leeyahay dhibaatooyinkan iyo raggan aad yeelinaysaan raggan aad gubaysaan iyo naagahan aad la dagaalamaysaan ba iska daaya ma fahanti banaankaas sharaf looga baxa si sharaf looga baxa dhibaatada koowaad ee horta ugu xunaan isleeyahay anigu aan uga baqanayo inaan halkaa ka baxo waa xagga carruurta waan gartay markay carruurtu ninkii gabadhu kala tagaan xoog bay u dayacmaan oo nimanka Soomaalidu badankoodu waxay u badan yihiin intaan arkay dee markaad wixii aad eegtid aad daraasadaysid nimanka dumarka carruurta way la furaan Soomaalidu gabadhii markay furaan carruurtu way ku dayacayaan marka waxaan leeyahay carruurtaada marka hore adigu meel wax u dhigo يعني كيد له شقيسو ها كيغا مارنتين ninkan maadaama maalintii dee lagu furo carruurtina la furayo carruurtina la furayo ama laga reebayo lagu oranayo carruurta iskaga tag meel carruur laga tagi karaa ma jirto waxaan ognahay inta badan carruura meelaha ku dayacani waa carruura hooyooyinka ka tagaan ama gabadh ayaa loo geeyo ama maxay ahayd adigu waxaan qofan hooyadeeda ahayn gacanta u gala hooyada si kasta u xun tahay haday dhibaato kasta hooyada leedahay yani ma waxaan ogahay ilmaheeda inaanay cidna u dhaamin dumarkan raggu yani ay soo guursanayaan kale ninku intuu gabadhiisii hore dayaco uu gabadh kale guursanayana de waxaan leeyahay taa kama wanaagsanid oo waxa jirta sidoo kale waxa jirtayna inay dadkeenu yiraahdaan iminka hadii nin gabadh bari guursaday uu gabadh kale guursaday arkaan cagta u saarayaan maanu ninkii gabadha furay ahayn maanu ninkii waxaan sameeyahay hadaan furnigu xal ahayn ilaahay mu baneeyeen marka ninka intuu gabadhii ay kala taganaysa afgaran waayna carruurtiisii hagaajisanaya de uu guursanaya gabadhii ay kala tagan uma joogayo marka waxaan leeyahay dumarka ragga yani ay dumarkiisa afgaran waayeen dhulka ku kala foofeen laakiin carruurtiisii day catiranaya cagta u saarayo widku ka daaya laakiin gabadha nin carruurtiisii hore iyo gabadhiisii hore soo dayaco ciyaalkii hore tuuray kuwaagana kuwan kama wanaagsana mid kale asaga lay barnaamijkan kaga faa'iideysanaya
haddaa kaa dhex galana raali noqo dumarka caruur aanay dhalin gacanta loo geliyo xoog bay u dhibaato badan yihiin ay caruura u dhibaateeyaan ay u kala yacni xigsadaan oo ilmahooda iyo ilmaha kale ammaanada u kala xigsadaan anigu hibaaq ahaan waxaan maanta aaminsanahay anu caruur baan koriyey horta intaanan caruur dhalin caruur inan yaroo walaashay dhashay baan koriyey aan korsaday aan haystaa cabdijibaar inankiisaan hayaa yacni waxaan ogahay maanta inantayda yar inay igaga xil weyn yihiin inay igaga xil weyn yihiin baan ogahay oo waayo sababtu tahay aan maanta dhan xil iska saarayo dee oo haddii ilmahaasi uu kufay haddii kay uu kufaan isku mid ahayno haddii nabar ku yaala la odhanayo hooyadii baa ka maqan oo nabar baa gaadhay ilmahaygan maanta anigu inantayda yar garantiin uma haysta intaan u noolaanayo inantayda yar waa inaan dhito fiican uga tagaa oo aan caruuraha kale aan hayo ama caruurta kale waxyaabaha caruuraha kale ubadka kale dantu ibaday aan dayac tiraa haddaanan dayac tirin ilmahaygan anigu ilaahay goor nafta iga qaadaya ma ogi ciday mudo doonto aaye iyo eediya habar yar qof xun iyo qof wanaagsan ma ogi laakiin waxaan ogahay haddaan maanta anigu caruuraha xilku iga saaran yahay ee aan yacni dantu isoo baday aan dayac tiro inaan taydana la xumaynaynin marka arrinkaasaan kaga faa'iidaysan waxaa leeyahay dumarow caruuraha yacni ama hooyadood laga soo qaatay ama hooyadood dhimatay ama adigu waalidkood ka agdhaway si kastaba ha ku dhacday caruuraha aydan dhalinay laakiin gacantiina ku jira si aydan kiina u daryeelin oo u dayactira dee hibaaqay markaa waxaa la odhan karaa hooyo cajiiba baad tahay oo adigoon hooyo noqono yacni waxba dhalin baad hooyo dhammaystiran sii noqoto anu maba joogi karo guri bila caruura ilaahay amarkiisa haye caruur badan baa iga yaryar 6 caruur iga yaryar reer bada weyntii hibaaqay horta may waa lagaa weyn waan gartay marka cajiib baad tahay waxaan dib ugu noqonaynaa fankaaga heestii kuugu horreysay xilli ma ayaad samaysay ama aad duubtay 16 yaraa wixii waad ku cusub tahay markii aad bilaabaysay ma kugu adkayd macaadi bay ku ahayd bal ka waran se markiiba ma baxdo heesta ma sii daysay walaa waxba iguma adkayn oo aniga cabdijibaar baa gacanta yahay ilaahay sharfo marka asaga igaga soo horeeyay oo hawlaha igaga soo horeeyay marka asagu ma gacanta qabto halkii doonisay ka soo dhameeyay hadii muusiga hadii cod la qabanayo hadii la xanayd marna ma isleedahay hibaaqay heesaad qaaday oo aad duubtay marna ma diido ma tiri ma baxaysa waan iska haysan maalintii ugu horeysay heestii kugu horeysay haye wala iga soo saari waayay waan iska haystay waxaan dhigtaa qof ma dirayo may waxa inay sax noqoto marka maalinta cidna ilmay soconin aniga kaligay baa tago inaan musashan Maxamed Xaaji la dhahan u tagay taatana ayaa ii tumay marka socod iga soo duwaxan inay anigu kaligay codka soo duway sax noqotay aqligaba ma galiso mobilkan iskaga haystay marka barnaamij baa jiray mar dambe intay kooxdan dayaxbaan laygu daray la qabanayo hees balay waayay oo barnaamij degdeg oo qof kasta hees hore dadana dalqi Cabdijibaar iga soo saaray naatan ku gal marka waxaan leedahay heestii wala iga soo saaray haye wakaas dabadad ku haysatay oo kalsooni daray iga haysay wallahi waxa weeyaan waa cajiib marka fanaaniinta laga hadlaayo inta badan bulshadu waxay ku xamataa fanaaniintu waa dad balwad leh arrintan maxaad kaga jawaabaysaa faa'iin hibaaqay wallaahi walaalo arrintan waxaan kaga jawaabayaa fanaaniintu inay dadka bulshada ka mid yihiin bulshada adduunka ku dhaqan ee Soomaaliyeed mid balwad leh mid wanaagsan mid shantiisa salaadood tukada wax walba way leeyihiin marka waxay dadka kaga duwan yihiin ma jirto marka waxaad leedahay bulshada wax u khaasa ma jiraan oo dadka sheekh wax u khaaso aan ahayn iyagu iska ilaalin badan yihiin dadkan kale oo ummadii la daba dhigay oo iyagu halkii yar ay istaagaan yani dhalin yar ka muuqataba dadka loo soo bandhigayo aan ahayn oo aan ku ogahay ma jirto hibaaqay marka laga hadlaayo arrinka saaxiibtinimada hibaaq ma qof saaxiibtinimada qiimaysa oo saaxiib badan leh baa mise waxa weeyaan dadka gooni socodka ee aan saaxiibada ku dheeray anigu waxaan saaxiib laahay horta inamadayada walaalahay iyo hooyaday iyo deynamadayadaan kuu sheegay inan baan saddexdii inanay hore noo soo sheegay kuligii inan baan la saaxiibay Saarakin Axmed Caalin marka baan aad uga salaamay imka qurba joog wareer Kanada marka halka ma qurba joogta aad uga salaamaya ana saaxiibtinimada iyo walaaltinimada fanaanadahay marka aad iyadana u salaamaya dumarka markaan saaxiibtinimadooda kuma badni
laakiin saad u aragtaa hibaaqay saaxiibtinimada haween dumarka walaa aad bay howl badan tahay walaa inkastaan aniga dhibaatayga ka dhicin laakiin waynu aragnaa anigu waan aragnaa de yacni waxa xaaladaha ka taagan meelaha xataa waxaabay noogu filan badee social media oo waxa weeyaan 24 saac dee saaxiib iska daaya waxaadan u quudhayn inaad maalin salaantay aadan u quudhayn baa intaa la isku sameynaya lagu leeyahay laba qof oo ceesho milixoo beri soo wada cunay oo soo wada noolaaday oo noloshii oo dhan iska warhaya ayaa isku caayaya waxay doonaan marka waxaan leeyahay horta dadku ha saaxiibaan melihi cidna ha la saaxiibin laakiin qofku waxaan anigu kula talin lahaa dadku inay sirtooda iyo waxyaabaha maaragtay dhaliishooda iyo meelaha ay ka nugul yihiin ayaga khaas u ahaato si aan berito hub loogaga dhigano dee aan loogu soo wahagaag ugu dambeyntii hibaaqay bulshada ku daawanaysa Soomaalida maxaad odhanaysaa ummadda Soomaaliyeed marka soo jooga waa salaamaya waxaan ilaahay uga rajaynayaa waan u ducaynayaa inuu ilaahay bogooda barcad isku mariyo inay qabiilkan si walba u baabiyay insha Allah ilaahay ka madoobeeyo oo sidii loogu talagalay dad u isticmaala qabiilka ay noqdaan waa kaas oo arrimaha qabiilka iska daayaan hibaaq maadaama saxafiyo tahay wax loo baahay galabta inay barnaamijka soo xidho samaha oo si wanaagsan daawadayaal halka nagala socotay waa Guura Media barnaamijkeena kulanka bulshada ayaan galabta inta ku soo afmeerayna waa aniga sagal goora idile iyo khadar riido idile kulanti dambe xiisa leh sidoo nabadgelyo hibaaq gobaad hibaaq cabdi yuusuf oo ku magac dheer hibaaq gobaad aad iyo aad u mahadsan tahay barnaamijkeeda galabta idin soo xidhay way mahadsan tahay meel dheer bay nooga timi waqtigeeda waan uga mahad celinaynaa hibaaqay hooyaa tahay marwana waa tahay inantii yareydna galabta waxaan u malaynayaa inaad ma habarteed ban kaga imo dhib ma qabto waagaag marka intaa waxaad leedahay taasi hawl ma baahna aad iyo aad bad walaal macaan u mahadsan tahay sida sharafta badan ee quruxda badan ee waqtigaaga aad noo soo siisay adduunka waqtigaa ugu qaalisan wad mahadsan tahay qof wuxuu ku siiyo waqtigaagii wad galabtana siisay thank you so much aad